Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan maanta idin haynaa warar xasaasi ah ee ku aadan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhex qarxay Bariga Dhexe, kuwaasoo u dhexeeyey dowladda Mareykanka iyo dowladda Iiraan. Haddaba, dagaalkani waxa uu ka bilowday kadib markii jenaraal dadka muslimiinta xasuuq u geysan jiray, islamarkaana Mareykanku ay ka soo horjeedeen, ayaa waxa ay dowladda Mareykanku gantaal kula dhifatay magaalada caasimadda ee dalka Ciraaq ee Baghdad, halkaas uu ku naf waayey. Sargaalkaas ayaa waxa uu ahaa gabrihii Carabta, waxauna ka shaqayn jiray arrimo badan oo isugu jira shirqoollada, hubeynta dadka argagixisada ah, ururada ka howlgala Bariga Dhexe dhammaantood kuwa Shiicada hoostaga ayuu hubeyn jiray, wuxuuna u qaabilsanay in uu dowladda asigu oo ka tirsanaa ee Iiraan uu hubka uga soo qaado islamarkaana uu gaarsiiyo. Waxaana lagu garanayaa weeraradii ka dhacay gacanka oo maraakiibta lala beegsaday iyo kii ugu dambeeyey ee kaydinta shidaalka ee waddanka Sacuudiga ah lagu burburiyey. Arrintaasi markay dhacday ka dambe, dowladda Iiraan iyo ninkaasi dadkii taabacsanaa aad ayay uga caroodeen arrinkaasi, waxaana hawada laysu mariyey hanjabaadyo kala duwan oo aad u xanuun badan. Madaxweynaha Mareykanka ayaana hanjabaadihii ugu daray soo ridayay, kaasoo asigoo cabsi weyn qaba hadlaya. Waxa uuna hanjabaadihiisa ka mid ahay in Iiraan hadday isku daydo in ay aargudasho samayso, islamarkaana dowladda Mareykanka dhibaato ay soo gaarsiiso, oo dowladda Mareykanka ay weerari doonto 52 goobood oo aad muhiim uga ah dowladda Iiraan. Wuxuuna sheegay in shiishku saaran yahay, laakiin dowladda Iiraan arrintaasi dheg jalaq uma siina. waxa ay samaysay 2 weerar oo aad ay ugu hoobteen dalka Mareykanka, kuwaasoo ahay in website dowladda Mareykanku leedahay ay jabsadeen Iiraaniyiintu, islamarkaana xog badan ay kala baxeen, taasoo aad uga ah sharaf dhac khasaare weyn u soo hoysay. Laakiin taas looguma sinine, maalintii shalay ahayd ayaa waxaa gantaalo kuwa riddada dheer ah lagu dhiftay 2 saldhig ee dowladda Mareykanka ku laheeday waddanka Ciraaq gudihiisa, waxaana la sheegay in halkaasi khasaare weyn laga soo gaarsiiyey. Haddaba arrinkaasi maxaa ka dambeeyey? Trump oo isla markiiba hadla wuxuu yidhi, arrinta waan u jeednaa, waad arkaysaan, anaga waxaan samayn doonno jawaab baad ka helaysaan degdeg. Laakiin caalamkii oo dhan ayaa cambaareeyey, haba ugu daraadeen xisbiga garabka bidix ee dalka Mareykanka ee ay hogaamiso gabadha la yidhaahdo Miss Clinton. waxayna dhaheen ninkii la dilay generaalka ahaa waxa uu ahay dowladda Mareykanka oo la dilay. arrinkaasna aad ayuu u qaldanay. laakiin Trump oo laga sugay inuu weerar qaadi doono ayaa wax tilaabo ah qaadin, islamarkaana arrintu waxay isugu bishubatay in waan nabadeed la galo, islamarkaana dowladda Mareykanka wax tilaabo ay qaadi weyso maadaama sharciyada caalamiga ah ay ku xadgudubtay. Mareykanka ayaa dhibaatooyinka ka dhaxlay dilkii jenaraal Qaasim Suleymaan waxaa ka mid ahay in uu ciidamadiisii ku sugnaa iyo saldhigyada uu ku lahay dowladda Ciraaq gudaheeda la yidhi islamarkiiba durba uga guura halkan. laakiin asigoo madaxa dhulka ka ceshanaya ayaa madaxweyne Trump waxa uu yidhi, kama guurayno ilaa qarashaadkii naga galay halkan nala ka soo celiyo. taas laakiin ma shaqaynayso, iyaga ayaa ku xadgudbay waddan kale oo waddan gudihiisa nin diblomaasi ah ee ay caswinteen hal gantaal kula dhiftay, waana shuruuc xadgudub ku ah qaynuunka caalamiga ah. haddaba wararkaas ayaan idiin hayna caawo, waxaana la sugayaa weli Mareykanka oo aan ku dhawaaqin tilaabo cad oo arrintaasi weerarka uga jawaabayo. laakiin Iiraan ayaan intaas ku sii adkaysane, waxay ku hanjabtay dowladda Iiraan in ay gantaalo la dhici doonto
waddanka Israa'iil iyo Kuwait iyo Imaaraadka iyo waddan kasta oo Maraykanku gacan saar leeyahay oo laga yaabo inuu uga soo duulo. arrintaas ayaa caalamka oo dhan baqdin gelisay, waxaana si aad iyo aad ah baqdinta ugu weynaa ay soo gaartay dowladda Israa'iil oo mar kastaba cadow u aheeday muslimiinta. haddaba wararkaas wixii ku soo kordha waxaad kala socotaan kanaalkeena Kasmo TV, waxaana idinka codsanaynaa wax dhiba idinkuma hayse inaad sabskaraybka aad saartaan, laygta iyo commentigana aad soo badisaan, ileen wax lacaga idinkuma fadhiyaan. sheertana aad ugu dadaashaan oo aad intaad linkiga qaadaan Facebook pagekiina aad ku sheergaraysaan si dadka kale idinla ogaadaan. waa mahadsantihiin, daawashadiina waa ku mahadsantihiin. websitekeena www.kasmotv.net kala soco wararka, sidoo kale websiteka kale ee arrimaha Jubbaland falanqeeya ee www.jubbalandvoice.com kala soco warar kale oo dheeraada halkaasna. waxaan leenahay waa mahadsantihiin. waa saaxiibkiin Cabdullaahi Dasar oo idin leh nabadgelyo.